madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay ixtiraam darro lagula kacay xaaskiisa Brigitte oo 66 jir ah. hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelka Dalo TV, fadlan adigoo mahadsan subscribe noo saar si aad u heshid wararka cusub aynu soo gelino. mahadsanid. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaariyay dhigiisa dalka Brazil Jair Bolsonaro isagoo sheegay in uu si qalabsan uga hadlay marwada koowaad ee Faransiiska. qof taageersan madaxweynaha Brazil ayaa ku jeesjeesay xaaska Macron Brigitte oo 66 jir ah, iyadoo qofkaasi uu Facebook soo dhigay qoraalka Facebook waxaa la socday sawirka xaaska madaxweyne Bolsonaro, Michelle Bolsonaro oo 37 jir ah, kaas oo ahaan lidi ku ah midka marwada koowaad ee Faransiiska. hadda waa fahmi kartaa sababta Macron uu sida xun ugula dhaqmayo Bolsonaro ayuu qoraalkaasi ahaa. Bolsonaro oo ah madaxweynaha dalka Brazil oo arintaasi ka falcelinaya ayaa ku hoos qoray nin yahow wejigabax ha ku ridin oo uu qosol ahaan ka wada ayuu ku sii daray isaga oo luqadda Boortaqiiska adeegsanaya.